nin dambiile ah oo lagu soo oogay in uu ka dambeeyey falal dambiyeedyo uu kula kacayay ilaa iyo 8 haween ah oo kala duwan iyo magaalooyin iyo goobo kala duwan oo gudaha dalka Norway ah ayaa hadda la soo taagay maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway. Ninkan ayaa kiisaska lagu soo oogay waxaa ka mid ah isku dayo kufsi iyo jirdil iyo sidoo kale cagajuglayn, handadaad iyo dhibaatooyin uu u geystay haween lagu qiyaasay ilaa iyo 8 dumar oo kala duwan kuwa oo ka kala dhacay gudaha waddanka Norway deegaano kala duwan oo ka tirsan. Ninkan ayaa hadda waxaa lagu maxkamadeynayaa magaalada Oslo halkaasoo ay dacwadiisu ka socoto, waxaana lagu soo eedeeyay cabsigelinta, handadaada, dhibaataynta, cagajuglaynta iyo isku dayada kufsiga ee uu u geysanaya haweenkan 8 ah. waxaana lagu soo waramayaa midii ugu dambeysay inay ahayd haweeney da'deeda lagu sheegay soo dambeeyo, taa oo uu isku dayay in uu kufsi kula kaco 15 bisha Abriil ee aynu ku jirno ee 2026. waxaa kasii horeeyay kiisas kale oo dhacay December 28keedii 2025 iyo kuwo kale oo dhacay 6 January ee 2026. arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay sii badanayaan dambiyeedyada kala duwan ee ka dhacaya gudaha waddanka Norway. kiiskan ayaa hadda maxkamadeyntiisu waxa ay ka socotaa gudaha magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway, waxaana lagu soo waramayaa in ay hay'adaha kala duwan ee cadaaladda iyo booliskuba ninkan u xilsaareen in ay baaritaano iyo sidoo kale dabagalba ku sameeyaan khabiiro dhanka caafimaadka maskaxda ah si loo ogaado maskaxdiisa waxa ku jira iyo in dhibaatayntan uu kula kacayo haweenka kala duwan ay tahay mid dhanka caafimaadkiisa khusayso. baaritaanada dhanka caafimaadka ayaa sidoo kale ninkan ku socdo, waxaana la eegayaa xaaladahan kala duwan iyo naceebkan isdabajooga ah ee uu dumarku u qabo in wax laga ogaado. waxa uuna sheegay qareenka booliska Erland Jensen in ay arrintani siinayaan mudnaan aad u baaxad weyn maadaama ay tahay kiis soo noqnoqday oo ku saabsan dhibaataynta dumarka kala duwan ee ku dhaqan gudaha dalka Norway, halkaasoo ninkan hadda lagu soo oogay dacwad ku saabsan dhibaataynta, waxyeelaynta iyo sidoo kale isku dayga kufsiga uu u geystay ilaa iyo 8 dumar ah, kuwaasoo hadda ah kuwa diiwaan gashan inta aan diiwaan gashanayna baaritaanadeeda ay socdaan. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiide.